هاي ومناسبتنا وقت جاد جابين هاي وحن مر لبعض يمر صدحات وهم هاد علينا يا عد كسوسة جالسينتي حفلة قيمة له حفلة بلان يان عادي عادو بقعدين يا كما ملهان مركورة وحن إلهي كبر يا إنه حل كان نجوا أسطورة ومسؤولية أنت يدون تعلق كاتو إن الله نقدر نقول كي مسؤولية تاجرته حل كاس على سكولية جرته هيان إلهي كبر يا مركورة وحن إلهي كبر يا إن نقولنا يعني تيم أنبا ضد وضع الشقية يسكت دوبان ويا مركا أنت حل كهاي ساي نقطة ضد يسكت دوبانه يعني تلدود مديسنتي هيا لجارية إن بلشدي يدعان كين الله شقيه marka marka hore ka maamul cusub ahaan waxaan ku dadaalnaa insha Allah inaan noqono dad isku duuban oo wada shaqeeya kartana danta guud iyo waxaan halkan u nimi insha Allah degmada waa laga soo sheekeeyay tacabkeedii iyo wixii la geliyay insha Allah alla naga ma dhigo tacabka la geliyay kuwii qasaariya laakiin waxaan ku dadaalnaa insha Allah halkay maanta joogto iyo meel ka sareysa inaan gaarsiino aniga gaar ahaan dadku amba asxaabtayda waxay lahaayeen war ma miibaad u shaqo tagaysa oo iga yaray dadka intii igu bogaadinaysa lahayd laakiin waxay lahaayeen dib noqosho iyo meel dambaad ku noqotay laakiin waxaan ku yiri meelun bay wax ka soo bilaamaan bulshadeenu badankeenii 90% amba 80 waxay taalaamiyay haddaan dadkii deegaankii loo soo noqon haddaan wax qabadka laga bilaabin deegaamadii hoose isku xidhmi maayaan deegaamadiis amba dawladii iyo deegaamadii ma sha Allah waxaan aad ugu faraxsanahay in degmooyin badan in rag dhalinyaro loo soo magacaabay sida degmada Sabwanaag oo kale oo charno wada shaqeyn fiican insha Allah yeelan doono yani taas waxay tusaale u noqonaysaa in dadkii amba dhalinyartii magaalada joogtay inay deegaamadoodii ku soo noqdaan inay dadkii maskax cusub iyo horumar cusub geliyaan anagoo dadkii waaweynaa ay mustambeed iyo talo noo ahaan doonaan insha Allah taala in anagu ka maamul ahaan waxaan ku dadaalaynaa degmadu maamulkii hore ma sha Allah meel fiican iyo bar laga bilaabo soo gaarsiiyay anagu waxaan ku dadaali doonaa waxa dhiman sida inaan ku dadaalno in xaruntii degmada dhisno gurigii martida la sameeyo sariibadii magaalada la sameeyo ta ugu muhiimsan wax kasta Soomaalidu waxay tiraahdaa farad dufan wax duuga waxa ugu muhiimsan horta degmadu budget amba dhaqaale ay wax ku maamusho male labadii sano iyo dheeraadkii jirtayna wali kab looguma darin waxaan ku dadaali doonaa insha Allah taala horta degmada inaan kabkeedii ku dadaalno in degmadu noqoto degmada miisaaniyadda qaranka kab ku yeelata si kabku wuxuu ka caawinayaa inaad haba yaraade laakiin adeeg inaad bilowdo hadday mushaar noqoto hadday wax kale noqoto marka insha Allah taasna priority-ga koowaad baanu siinayna waxaan priority-ga kala siinayna iyadoo gudidii iyo dadku nagala shaqeyn doonaan inay degmadu xad yeelato waayo degmadu markaad agarato halkay xukunto ay xad leedahay ayaad ku xisaabtami kartaa marka taasna waa priority-ga labaad baanu siinayna waxa soo dhan waxa ka muhiimsan waxaan ku dadaalaynaa insha Allah taala inaan noqono dadka isku duuba dadka isku xidha dadka kiisa hoose iyo kiisa sare way isku haya dadka dhageysta taladooda dhageysta yani aan noqon dadka iska xayraan bay iska fogeeyeen insha Allah waayo markasto talada iyo deegaanka baahiyaha waxa dad loo shaqeynaya waa dadkii deegaanka hadaad baahiyahoodii waraysan hadaanad ku xidhnaanin wax badan ogaan maysid marka insha Allah waxaan ku dadaalaynaa inaan noqono dad ka turjuma baahiyaha ay deegaanku qabaan waxaan ku dadaalaynaa in degmadu noqoto degmo ku xiranta yani dawladii dhexe inay wasaaradaha laamahoodii ka furmaan inay noqoto degmo xiriirka u dhaxeeya iyo dawladda dhexe noqoto mid adag waxaan ku dadaali doonaa insha Allah inaan degmada geed dheer iyo geed gaaban korno meel kasto wax looga soo helayo